diyaarado dagaal oo aan la ogeyn dalka laga leeyahay ayaa weerar cirka ah waxa ay ku qaadeen saldhigyo ururka Al-Shabaab iyo Daesh ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka Bari. Saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland ayaa xaqiijiyay duqeynta lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqeynta ayaa ka dhacday nawaaxiga tuuladaas Timirshe oo ay ku sugan yihiin Daeshta ku sugan deegaanada maamulka Puntland. Dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradahaas gantaalo ay ku garaaceen saldhigyo ay leedahay Daesh waxaana la ogeyn khasaaraha ka dhashay. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa inta badan ka fuliya weerarada cirka ah oo inta badan ay la beegsadaan goobaha ay ku sugan yihiin ururka Daesh iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab oo Soomaaliya labaduba ka dagaalama. Dhinaca kalena dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida warkan uu ku faahfaahinaya Maxamed Cabdiraxmaan. dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Puntland iyo maleeshiyada hubaysan oo ilaalo u ahaa kooxda dadka wax tahriibisa waxaana ay ka dhaceen deegaanka Mareero oo 10 kiiloomitir dhanka bariga kaga toosan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dagaalka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Puntland oo waday howlgallo ka dhanaha kooxda wax tahriibisa iyo maleeshiyadka ilaalada u ah waxaana dagaalka oo ku dhintay 2 ruux halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaal ku sugan magaalada Boosaaso ayaa waxa ay soo sheegayaan in ciidamada Puntland ay howlgalka ay ku baadi goobayaan koox ka tirsan kuwa wax tahriibiya oo la tuhmayo in ay dilka askarta ka tirsan ciidamada madaxtooyada lagu geystay magaalada Boosaaso. sidoo kale wararku waxa ay intaasi ay ku darayaan in ciidamada ammaanka Puntland ay u suura gashay in ay gacanta ay ku dhigaan qaar kamid ah dadka wax tahriibiya iyo maleeshiyadka ilaalada u ahaa iyo mid kamid ah gawaarida dagaalka oo ay wateen. xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa waxa haatan ay tahay mid caadi ah waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin isla markaana ay wadaan howlgallo ka dhan ah kuwa wax tahriibiya. Puntland ayaa tiro dhowr jeer ah shaacisay in aysan marnaba ogolaanaynin in ay deegaanadeeda wax laga tahriibiyo waxaana ay musaafirisay tahriibiyaal Itoobiyaan ah oo doonayay in ay ka tahriibaan xeebaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. markana kooxda macawisleyda ee gobolka Hiiraan ayaa sheegtay inay dileen nin ajnabi ah kadib dagaal ay ururka Al-Shabaab kula galeen dowladka Buulaburda ee Hiiraan. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa ka waramaya. maxamed cali istakiin oo sheegtay inuu yahay taliyaha ciidanka macawisleyda ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho u sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan isla markaana halkaas ay ku dileen nin sida uu sheegay ajnabi ah isla markaana ka barbar dagaalamayay ururka Al-Shabaab. maxamed cali istakiin waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalkan intuu socday ku furteen hub iyo lacag ay lahaayeen Al-Shabaab isla markaana ay qabsadeen goobihii ururka Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay inuu hal qof ka dhaawacmay ciidanka macawisleyda sidoo kalena qof kale oo dadka deegaanka ah ay waxyeello soo gaartay. dagaalku wuxuu ka dhacay deegaanka la yiraahdo Halgan dhankeeda koonfureed magaalada meel 5 kiiloomitir u gaadhan. haye anagana weerar ka qaadno Al-Shabaab ma Al-Shabaab meesha meel waxay isku argsanayeen marka weerar baan ku qaadnay waxaan ku dilnay nin Al-Shabaab Pakistani ah oo furjoogaashooda kamid ah iyo nin kale Soomaaliya ma garad marka walaalo saddex qorin waa ka soo furanay lacag 49 milyan shilin Soomaaliya waa ka soo qaadanay barti control ma garad oo weerarnay marka walaalo nin baa naga dhaawacmay dad oo reebadiyo ma deganayna qof baa iyaga ka dhaawacnay ma garad maya ayaga deganaa meel waxay aadi meesha waa meel oo tuulo ka baxayeed marka meel control iyo waxay meel ayaga oo Al-Shabaab dadku uga arrimiyaan ama xabsin waa ugu yilay maxaabiis waa wada ka qaadnay oo adiga ay ku ilaato qof oo amal ah marka walaalo lacagtaas barti control waa qabsanay marka dhowr jiha ka soo galnay marka muddo adiga ilaa 3 saac ka bacdina ilaa 3 saac muddo marka qabsanay ilaa 3 saac ka bacdina naga haysan dawladna anaga qorshaynana meel si haysan ma baynba dib u gurashan sameeyay awalba meelaha ka imaana oo noqon ma garad waxa ku sugan ayaga ku sugan ma garad anaga dib u gurashan sameeyna deegaanada aan ka imaanay aan ma garad ujeedka marka hore meesha aad u weerarteen maxay ahayd ujeedka aan u weerarno marka hore meesha u weerarno waxay inaan ayaga la weerari karo meel laga qabsan karo
dabadeedna afarta dhinaca loo kala raacday karo dhaawac dhimashana aan lagu dhigi karo ma garan hadalka ka soo baxay maxamed cali istakiin oo sheegtay inuu yahay taliyaha ciidanka macawisleyda ee gobolka hiiraan waxa uu kusoo beegmayaa xilli bilihii ugu dambeeyay deegaano ka mid a maamulka hirshabelle ay ka bilowdeen dadka deegaanka oo is abaabulayay kuwaas oo ay sheegeen inay dagaal kula jiraan al-shabaab oo inta badanba iyo dadka deegaanka ay ku dagaalamaan xoolaha xilliyada al-shabaab ay doonayaan inay ka qaadaan sakawaadka ma jiro wax war ah oo kasoo baxay al-shabaab oo ku aadan sheegashada ciidanka deegaanka ee macawisleyda lagu magacaabo ee deegaanka halgan ee gobolka hiiraan oo ku aadan dilidda ninkaasi ajnabiga ah ee ka tirsanaa al-shabaab. guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa ka warbixiyay halka ay mareysa qabanqaabada soo xulista baarlamaanka maamulkaas. Axmed Tifo Xasan ayaa dhameystiray warkan. guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka Jubbaland oo warbaahinta magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose kula hadlay ayaa ka warbixiyay halka ay mareyso qabanqaabada soo xulista golaha sharci dejinta ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale xareynta odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi. Axmed Cumar Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee maamulkaasi Jubbaland ayaa sheegay hadda in meel wanaagsan ay mareyso qabanqaabadii ugu dambeysay oo lagu doonayo in lagu qabto doorasho deegaanada maamulka Jubbaland ka hirgasha kadib kulan ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada maamulka Jubbaland oo ay qayb ka ahaayeen odayaasha dhaqanka, ururada dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta iyo matasharaf kale. waxaana inta badan kulamadaasi xoogga loo saaray qaabka ugu sahlan ee loo wajahayo doorashada maamulka Jubbaland. guddigan ayaa uu sheegay Axmed Cumar Maxamed oo gudoomiye ku-xigeen ka ah guddiga doorashooyinka xuduudaha maamulka Jubbaland in ay hadda si wanaagsan howshooda ay u socoto iyadoo ay ku hoolan yihiin soo xulista baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha waa baarlamaanka maamulka Jubbaland kuwa oo dooran doona madaxweynaha maamulkaasi 4 sano ee soo aadan. waxaana deegaanada maamulka Jubbaland hadda ka socota ololaha doorashada iyo soo xulista golaha sharci dejinta ee Jubbaland. waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka hadalnay waxay ahaayeen doorka haweenka ay ku leeyihiin guud ahaan bulshada iyo doorashadan iyo sidii kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen. waxaan ka hadalnay doorka odayaasha, waxaan ka hadalnay habraacyadii doorashada iyo qaabkii ay u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. midda iyada ana meel fiican bay noogu soo gabagabowday. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii maanta halkan kulanka nagala qayb qaatay oo sida wanaagsan fikirkooda noogu soo gudbiyey, wixii su'aalo ay qabeenna u weydiiyay. haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraaho meeshan wixii ka dambeeya waxaan u qalab qaadi doonaa inaan maaragtay odayaashii dhaqanka isu keenno oo aan bilowno wejigii xulista xildhibaanada inaan bilowno haddii Ilaahay yiraaho si xilli dhow oon aad u dheerayn insha Allah tacaala. magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubbaland sidoo kalena ah caasimada gobolka Jubbada Hoose ayaa hadda ku sugan musharaxiin u taagan qabashada kursiga ugu sareeya ee maamulka Jubbaland waxaana ay wadaan olole ku aadan inay qabtaan xilka madaxtinimo ee maamulkaasi muddo xileedka soo aadan iyadoo ay jirto dhaliilo badan oo loo jeedinayo hogaanka sare ee maamulka Jubbaland ee waqtigiisu sii idlaanayo oo hogaan uu yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyadoo lagu eedeynayo caburinta dadka ka aragtiya duwan maamulka Jubbaland xilliyada ololaha doorashooyinka ay wadaan. iyadoo Maxamuud Siidaadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland uu dhawaan hadal uu ka jeediyay Kismaayo uu sheegay ama uu ugu diray digniin musharaxiinta doonaya xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland in aysan hadallada qaar u adeegsan xilliyada ay wadaan ololahooda doorashooyinka. waxaana uu sheegay in si wada jira ay tahay in looga wada shaqeeyo sidii ay ku dhici lahayd si habboon oo xor iyo xalaal ah doorashada maamulkaasi Jubbaland. safiirka Soomaaliya ee Suudaan ayaa la kulmay madaxa golaha militariga ee dalkaas. Ubax Maxamed Nuur ayaa dhameystiraysa. madaxa golaha ciidamada ee kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ee Suudaan ayaa xafiiska kula kulmay safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya
oo mutaxileedkiisa dhammaaday. war-saxaafadeed uu soo saaray safiirka Soomaaliya ee Suudaan Cabdirasaaq Axmed Sheekh Maxamuud ayuu ku xusay qoto dheerida xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan, wuxuuna intaasi raaciyay inuu kaga mahad celinayo madaxa kulaha ciidamada ee xukuumadda iyo shacbiga Suudaan karab istaagii iyo taageeradii walaalahooda dhabta ah ee Soomaaliya. sidoo kalena ay Soomaaliya taageero hiil iyo hoob la garab taagan tahay walaalahooda Suudaan. wuxuuna danjiraa Cabdirasaaq Axmed Sheekh Maxamuud xiriirka labada dal ku tilmaamay mid soo jireen ah. dhanka kale safiirka Soomaaliya ayaa shacbiga walaalaha ee Suudaan u rajeeyay midnimo, wadajir iyo xasilooni, wuxuuna yiri qofka caaqilka ah waa kan ku tusaale qaata taruufaha dadka heerarkiisa la kulma, waxaana loo baahan yahay ayuu yiri in wax laga barto xaaladaha adag ee soo maray qaar ka mid ah dalalka dariska la ah Suudaan. danjira Cabdirasaaq Axmed Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii war-saxaafadeedkiisii uga mahad celiyay xukuumadda iyo shacbiga Suudaan gacansiintii wanaagsaneed uu ka helay mutaxileedkiisii danjiranimo. shacbiga Suudaanna wuxuu u rajeeyay deganaansho iyo barwaaqo.